الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم والله الصوماليين ملك joogtaan بإلهي سبحانه وتعالى idinku ammaanyeelo cidii dhibadhibka Allah ka qaado cidii dan la Allah woofiyo inta baahan Allah deeqo inta bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. Imaanta waxa ka hadlaynaa laba qodob xildhibaano ka soo jeeda beel kamida beelaha waqooyi oo shir jaraa'id ku qabatay Muqdisho كلمة كورانية. قلب كلمات وسير عيديد وسير كإنفورميشن كا بنتولان ورئيس وسيا إذاعات كجهاد لي مدن ماذا إسلامر كاسنا فلنقيي بيلها وقوي يسيك ليهين أيار اللي جرين كبحي يدنا كلمة كورانية حد بعنو دوري الله بعتنا oo ay ku jiraan ra'iisul wasaare ku-xigeenkii Soomaaliya wasiirkii maaliyadda iyo wasiirro kale maareey ayaa waxay qabteen shir jaraa'idkaasna waxay ku soo saareen bayaankooda waxay kaga hadleen arrimo isugu jira taariikh beena isla markaasna ay ku jirto hadallo si toos ah uga hor imaanaya sheegashada ay ku shaqaystaan kuna joogaan Muqdisho oo ah midnimada ayaan wada aragnay wax la yaab leh oo aan 10 jeer idin sheegnay anigu 12 baan ku ogaa group gaar ah oo aad xag jiro ah oo toos madaxtooyada Somaliland ugu xiran oo xogta iyo information halka ka qaata isdhaafsadaan 12 baa ku ogaa laakiin 22 baa soo fariistay gudoomiyaha maxkamadda ku jiro dad kale oo xilal haya ay ku jiraan baa soo istaagay waxay sheegeen taariikh waxay dhaheen 60kii waa la midoobay waxa midoobay laba dawladood oo labaduba haykal dawladnimo u dhisan tahay gabi ahaanba waa been abuur taariikhda been lagama sheego ceeb weeye 1960 cigaal oo ka hadlaya processkii xornimada iyadoo duuban waatan ku jirta YouTube-ka qofku si sahlan buu inta dhageysto u soo ogaan kara xaqiiqada jirta ingiriisku markii uu siinayay xornimada Somaliland gobolada la isku yiraahdo conditionku wuxuu ahaa inay xamar la tagaan oo ay la midoobaan Soomaalida ciddii diidanayd oo arinta ka soo horjeeday 47 xildhibaan bay ahaayeen oo u badan beesha habar oo la yiraahdo waa laga adkaaday taariikhda been laga ma sheego waa laga adkaaday majority-gii baa israacay oo ahaa beelihii daarood dirta waqooyi qaybta ciisaha iyo samaroonta ama gadabuursi oo isla socda iyo qayb iyo garxajis oo dhan iyo qayb kale oo kamid ah habar jeclo iyo habar awal dhankaas ay u badnaayeen diidmada waa qoladii dalbanaysay 10 sanadood inuu ingiriisku sii joogo marka maadaama laga tira batay oo waliba dhowr dad aad u yar baa la isdheeraa baasaa lagaga guulaystay ma ay rabin ba in la midoobo qayb ka mid markii maadaama ay majority qaateen kuwii midoobayay ayaa xornimadii saal ugu qaatay dawladdu waxa la yiraahdaa haykal leh dawladdu waa inay caalan leedahay madaxweyne leedahay ku-xigeenno leedahay golo wasiirood leedahay baarlamaan leedahay ujeeda dal iyo shacabna ay leedahay intaas dawladda isku yiraahdaa lama yiraahdo dad ingiriiska oo gumaysta ahaa oo yimi waa idin ka baxay xor baa iga tihiin oo gumaystii baad xor ka tihiin dawladnimo lama yiraahdo Soomaalina dhulna ma siin dawladnimona ma siin xornimona ma siin waa uu aburiyay xoog buu ku qabsaday waana la iska saaray dhiig baana la iskaga saaray gumaystaha Soomaalidu kama baryin xornimadee waa ku khasabtay taariikhda been laga ma sheego inta horta taariikhda been bay ka sheegeen calankii ugu horeeyay Hargeysa laga taago calanka buluuga abu ahaa oo ay shaydaanka u yaqaaniin calan shaydaan bay hadda u yaqaaniin dadkana waa la xiraa kuwii ugu xumaa oo calan shaydaanka ahaa oo yuhuud ahaana waa lagu dabaaldegaa madaxa waa lagu dhunkadaa waa la dhunkadaa waa lagu sujuudaa xijaabiyaa laga toshaa
akhlaaq xumada faaftay oo yaacaysa oo diin la-aanta saldhigga u ah ood arkaysaan marka taas waa taariikh beena waxaa kaloo taariikh beena ah oo khaldan nimankan meesha ka hadlayay waxay dhaheen waxaan ku hadlaynaa magaca somalilan hadda hal beelay ka soo jeedaan beesha isaaq oo looga badan yahay degaanka somalilan la yidhaahdo inay magacii hijack ku sameeyaan iyagu qaataan oo ay somalilan baan u hadlaynaa yidhaahdaan waa khalad iyo gaf ay ka galeen ummadda degta goboladaas waxaa iska diiday shirkooda qaybna aan ka ahayn warsangeli dhulbahante gadabuursi iyo ciise intaasoo dhan waa diideen qofna kagama jirin kulligood hal reer bay ahayn beesha isaaq bay ahayn marka inay magacii somalilan oo dhan iyagu qaataan iyagoo weliba sheegay in laba xisbi uu ahaa wixii ka hirgalay meesha la yidhaahdo somalilan dhankeeda oo ahaa SNL Somali National League iyo USB United Somali Party oo ka hirgalay labada qolo USB waxaa ku midaysnaa gadabuursi iyo ciise oo dhanka gobolka awdala iyo labadan gobol oo kale oo sool iyo sanaaga ayaa ku midaysnaa midna beesha isaaq baa lahayd inay marka iyagu ay magacii qaataan oo ay somalilan ku celceliyaan khalad weeye tan dowladda sheeganaysana khalad bay ku tahay kuwaan meesha taaganna khalad bay ku tahay intaas markaan taariikh ahaan saxo qodobka ku xigo ay khaldeen wuxuu ahaa dowlad bay ka tirsan yihiin midnibay ku joogaan 25 sano ay mushaahar ku qaadanayeen sida maareeyo oo kale in badan oo ka mid ah cartaa laga soo doortay ilaa ay hadeerna lacag bay ku qaataan iyo mushaahar waxaa ku jira ra'iisul wasaare ku-xigeenkii dowladdaas dhan waxay ku dhaceen fal treason ah fal ka soo horjeeda madax bannaanida iyo midnimada Soomaaliya gebi ahaanba waxay afka ka dhowrsadeen inay wax ka sheegaan itiraaf beenaadkaas ay Israa'iil soo tuurtay waxay afkooda ka dhowrsadeen inay dhaleeceeyaan Israa'iil inay ku soo xadgudubtay midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya ficilkaasina waa treason weliba adoo ra'iisul wasaare ku-xigeen dalka ka xubinka saddexaad ee ugu sarreeya dalka arrintaas in badan baan ka dignay dadkaani mushaahar bay meesha u joogaan waxay u joogaan mushaahar laakiin toos waxay ugu xiran yihiin qalbigooduna jiraa gooni goosadnimada intaas ay aaminsan yihiin waxaan soo jeedinayaa dowladda hadday jirto iska daa inay wax ka qabatee dowladdii baaba difaacaysa fiqi ayaa wuxuu soo geliyey boost uu ku dhaleecaynayo iyaga waxyaabahan hadda aan sheegayana uu ka sheegayo kadibna saasay ugu yaaceen gobsan maxaan ku idhaahdaa maareeye biixi saasay ugu yaaceen iyagoo difaacanaya aragtidooda guracan bay waxay weerareen wasiir fiqi wuxuu soo dambaysiiyey boostigii waan ka saaray ra'iisul wasaaraha dhankiisa ayuuna farta ku fiiqay oo dowladdu midnimaan difaacaynaa iyo ciddii midnimada ka hor timi farta ha lagu fiiqo waa dembi isma qaadan karto ra'iisul wasaare mid qaado haddiise hadal khariban ama khaldan laga hadlayo adaa baraanki iyo ku sheegayey ictiraafka la helay maxaa taada uga saari weyday yaa kugu qayliyey gabar rafanaysaan ujeeda oo gobsan la yidhahdo le warankaagu ciddaanu kaa dhicin weedhaadu ma marto warankaagu ciddaanu marin weedhaadu ma marto oo leedahay anaa ka adkaaday waran baan kaga saaray hadalka la yaab kaloo ay yidhaahdeen wuxuu ahaa siyaasadda yaan la diimeyn waxay diidayaan oo la fool xun inay reerkoodii diintii ku xadgudbeen oo diin la-aan ku dhaceen taasay bay ka walwalayaan oo aada uga walwalayaan oo dhibaysa taa waa qarin waayeen marka waxay u hadleen oo dhan waxay ahayd iyagu inay difaacayaan ciro iyo go-aanadiisii waa nasiib daro marka arrintaani waxay muujinaysaa xadgudub lagu xadgudbay madax bannaanida iyo qarannimada Soomaaliyeed oo ay ku xadgudbeen dad mushaahar ku qaata magacaas horey baan ugu soo jeediyey dowladda gebi ahaanba intaan waa in xilka laga wada xayuubiyaa number 1 xildhibaannimada iyo xasaanadda laga qaadaa 2 waa in la maxkamadeeyaa oo lagu maxkamadeeyaa hantidii iyo dhaqaalihii ku baxay intii ay joogeen meeshaas oo ay ku qaadanayeen mushaharka ma garanaysaa magaca madax bannaanida 3 waa in loo xiraa ama la marsiiyaa xeerarka uu leeyahay ku xadgudubka qarannimada ama treasonka markaad noqotid khiyaano qaran qof ku dhacay oo khaa'in aad noqotid
axkaamtii iyo xuduuddii uu mari lahaa in la mariyo intaasan soo jeedinayaa qodobkaas intaasa ka horreeya qodobka labaad wasiir Caydiid ayaa waraysi siiyey idaacad waxa uu ka hadlay midnimada Soomaaliya iyo Puntland inay ka mid tahay qaranka Soomaaliyeed wuxuu kaloo sheegay Somaliland iyo sida loo kala dego intaan hadda sheegay buu sheegay wuxuu sheegay warsangeli Sultanate iyo dhulbahante iyo nimanka la yiraahdo awdal region dageegada Bursi iyo Ciise inay isku xisbi ahaayeen wuxuu kaloo sheegay qoladan isaaqna iyaguna inay xisbi lahaayeen oo Hargeysa lagu sameeyay SNL wuxuu sheegay in haddii ay rabaan inay go'aan ay la go'ayaan qaybtooda inta ay leeyihiin aysan matalin Somaliland dadka la yiraahdo ama deegaanada Somaliland la isku oran jiray protectorate inaysan matalin wax ka badan 25% ama less than 30% inaysan matalin saadarteed inaysan u hadli karin itiraafkuna u soo xusayn maadaama ay leeyihiin iyagu anagu waa go'aynaayo ma rabno in xoogna ku haysto iyaguna hadda cidna xoog kuma ka haysan karaan mana qaadan karaan wuxuu kaloo sheegay Puntland ay ka mid tahay dawladda Soomaaliyeed midnimada iyo qarannimadana ay qayb ka tahay waxa la yaab leh ninkaasi ciyaala ku yaacay ciyaala lacag qaataa jira oo dani u shaqeeya ciyaaladii baa ku yaacay tuug baa tahay lacag baa qaadataa baba ay baa saa loogu afuufay degdeg ayuu wuxuu uga bixiyay raaligelin wuxuu raaligelinta ka bixinaya maxay tahay Somaliland inuu wax ka sheegay iyo inuu midnimada Puntland inay ka mid tahay sheegay hadda dastuurka Puntland waxaa ku qoran oo lagu dhisay oo lagu asaasay midnimo waa hadalkii ay ku hadlayeen salaadiintu maalintii dhawey waa hadalka saxda ah ee dastuurka Puntland wali ku qoran laakiin wuxuusan ku qornayn maskaxda dani buusan ku qornayn maadaama marka uu jiray aqliga dani uu jiray dani waa gooni goosad waxaad ka arkaysaa juxa iyo ciyaalada hadda aan idiin sheegay baraha bulshada baad ka akhriyi kartaan waxa dani rabo juxa oo treason ku dhacay oo yiri Puntland is calculating hadda ka hor dhowr jeer yiri nuclear option hal la aado marar kale yiri waxaan u baahanahay in Puntland ay noqoto confederation marna lama cadaadin lagumana khasbin inuu ka baxo ama raaligelin ka bixiyo ama uu yiraahdo waa aragtidayda shakhsiga marna laguma khasbin laakiin Caydiid muddo aad u kooban baa waxa laga yeersiiyay waa aragtidayda ii gaarka ah kuma matala dawladda Puntland hada waa wasiirka warfaafinta Puntland wasiirka warfaafinta waa ninka informationka dawladdu ay qabto la rabo inuu isaga soo maro oo wixii soo baxo banaanka u soo baxa ay tahay afkii dawladda ninkii afayeenka dawladda ahaa oo golaha wasiirada afkooda wixii ka soo baxay iyo mawaaqiftooda iyo waxay aaminsan yihiin mabaadi'dooda caalamka u sheegi lahaa ayaa waxaa lagu buli gareeyay anigu ma garanayo inay dhanka kore oo dani ka timi iyo in yar ka adkaadeen in uu degdeg uga toobad keeno oo yiraahdo aragtidayda oo muxuu ka toobad keenay ma wixii saxda ahaa taariikh uu ka sheekeeyey oo ku aadan Somaliland laba ogol wax laga sheego waad arkayseen ciyaaladaasu waa u wada nikinayaan hambaliyo guul baa la gaaray dhadhana waaba sugi laayiin inta garowga gudaheeda by the way cado waxa lagu yiri garowga waaba dhaaftay anigu iyadoo banaanka ka jirtaan ogahay dhanka shay u dhaaftay cado magaalada dhexdeeda ku taala baa leeyahay mawjeeda iyo qow oo iyaduna boosaaso ku dhex jirto airport iyo dhismayaal badan xagga ka xigaan mawjeeda inta la oran doono sharci darra ku haysataan bay sugayaan bay la tahay ma garanaysaa marka waxaysan ogeyn oo ay inkiraysaa Puntland rabin inay ictiraafto maamul goboleed dhan oo u dhaxeeya iyada iyo Somaliland oo ilaa badda is haysta ilaa bariga Ethiopia is haysta oo la yiraahdo waqooyi bari Soomaaliya dawladda federaalkana ka tirsan xubinna ka Puntland waxay u siqaysaa in ay rabto inay goosato horaan idinku sheegay 3 bari koor tani xogtaan helnay inuu aqbalay raali ka yahay rabo inay go'do Puntland oo isagu la go'o oo next 20 years isagu iska haysto mawjeeda canshuur buu dadka ka qaadaa mushaharna ma bixiyo 7 bilood dad aan mushahar la siin baan hayaa waxaan kaloo hayaa 4 bilood dad aan mushahar qaadan oo reer Puntland canshuurtiina sidii buu u qaataa khasnaji buu u noqday wasiirka maaliyadda sida la sheegay dani maaha wasiir maaliyadeed waa khasnajiga dani magacaasa loo yaqaan 10 maalmoodna
dadka lagama maarmaanka ah buu wax ugu tuurtuuraa akoonadooda lacagta soo xirota ugu tuurtuuraa 20 cisho dambena deni buu akoon gaara ugu shubaa lacagta marka waa khasnaji nin u shaqeeya meeshuna waa makhaayad nin u furan marka aan saaleeyahay anigu meeshaan kasoo jeedaa aad bay ii dhibaysaa dhaqanka noocaas dowladnimo waxaan u aqaan service iyo khidmad sida uu suldaanku sheegayna suldaan Siciid madaxiisa Allah raajiye ninka madaxweynaha ahi waa nin shaqaale ah oo dadka u shaqeeya shaqadiina kama soo bixin Siciid shaqadii loo igmaday ma hayo wuxuu hayaa boob hantidii ummadda uu boobayo oo si ba'an manfici iyo mansabkiiba iskaga darsaday iyo magacoodii inuu ceebaynayo baabi'inayo Soomaalida degta Puntland waxay ahaayeen asaasayaashii ururkii SYL waxay ahaayeen calanka dadkii sameeyey calanka Soomaaliya buluga awaale waa nin reer Puntland waxay ahaayeen dadkii dhiiga iyo dhacaanka u shubay dowladnimadii Soomaaliyeed iyo xornimadii Soomaaliyeed ma ay ahayn mana geeyaan mana istaahilaan in lagu shaabadeeyo dabadhilifyo shisheeye dowlad yara oo iimaanka beeshay oo Sacuudigu maalin dhaweed cayrsaday oo si baan u jabtay fulinimada bay ugu daran waa ka baxay 24 saac kaga buxu yiri Yaman waa ka baxayna 2 saac gudahood bay ku aqbaleen waxa saa u jilicsan oo sida tacbaanka u ah baa maamulanayso dabadhilif loo yahay shaybaan arab oo saa week u ah baa dabadhilif loo yahay oo laga baqaya oo saa loo gariiraya oo aan kelmad la celinayn oo waxay rabta loo wadaya oo ku khasabtay kana dhaadhicisay inay iscaashaqaan inay u qayliyaan inay difaacaan waxa ka socda Hargeysa waa nasiib daro waxaan oranayaa waxaan idin sheegay wadiin muqdaan reer Puntland ismuujiya mudaharaada laba arrimood ba mudaharaada difaaca dalkiina mudaharaada yahuud in dalkii la keenay dhaqan xumo soo socoto albaabkii shaydaannimada la furay saqajaanimo oo dhan soo socoto pornography ay soo socoto gay iyo lesbian iyo khaniisiin la keeni doono in la waxa soo dhan iyaga waday waqooyiga aad bay uga wadeen oo ay uga socotay Puntland waa laga bilaabi doonaa sida ugu dhaqsaha badan hadii aydan ka hortagin akhlaaq xumada iyo diinta weerarka lagu yahay ka mudaharaada midnimadii Soomaaliyeedna u mudaharaada dalkiina iyo dadkiinana sharaftii in laga